baana ku sugan oo quraanka haddana markay yani aan af Soomaali ahaan markaan u sheego muslim baa Suhayb ka warinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri boqol baa wuxuu ku sugnaa buu dadka adinka idinka horeeyay ninkaasi marka saaxir buu lahaa buu boqorkaas markuu weynaaday waxyaalaha cajiibka waxa kamid ah nimanka madaxda ah weligoodba waa loo raadis hadda kuwii Soomaaliya madaxda ka ahaan jiray kuwa badan oo kamid ah dadku waa sheegi jireen oo nin walba wuxuu lahaa dad uu saaxireena iyo kuway hasa hogaamiye kooxdii laftigoodii baa ka marnay oo inta waa nolol dheeri iyo kursi masiixa iyo waxyaalaha waxa ay u sheegayeen marka saaxir buu lahaa saaxirkii markuu weynaaday ayuu boqorkii wuxuu ku adigu waa weynaaday ee waxa ay soo dirtaa wiil sixirka ambaro wiil buu marka u soo diray waliba wiil wuxuu ka codsaday dhugma leh nin wax fahmaya wiilkii markii meeshii la keenay oo saaxirkii loo keenay marka saaxirka uu soo aadayo jidka uu marayo nin suufiya joogo suufi masiixiya marka diintii nabiga soo sax dawaanay maxamed ka horweey ayadoo xaq u haysta si xaq u haysta ninkaasuu marka la fariisan jiray hadalkiisu dhageysan jiray hadalkiisa marka yaab galiyay markii uu saaxirka u imaanayo ninkaas suufiga buu sii maraa markuu reerkiisa ka imaanayo laftigeeda suufigii buu soo maraa labada jeer adoo markii dambe in la dilaa dhacday oo marka xil buu sameeyo wuxuu yiri markii wuxuu yiri yani inta ka timaado hadaad ku soo daahdo yiri agteeda inta ku daahdo adoo ka yimid ninkii saaxirkii baa xayiray ira hadii muxuu ahaa cidda xaggeeda markaa ka timaado soo marayso xayiraad kugu timaadana reerkaygii baa xayiray ira waa been ku badbaadinaya ilaalintii waa lagu qabsadaa la galaa xalay hadda hawl nin boqor uu wato weeye waqtiga la ilaalinayo inuu soo galaan maray beenta hadda waxyaalaha xaajaadka way ku banaan dhibaato hadday timaado marka wiilkii saa ahaa diintii buu qaatay wuu fahmay asagoo marka aan weli si fiican welina sheekadii labadii dhinacna wadwada xaqiina qalbigiisa uu galay ayuu maalin sida nabigu sheegay daabad weyn oo jidbadkii ka xayirtay oo inta arku wuxuu yiri alyawma a'lamu as-saahiru afdalu min raahib maanta waxaan kala ogaanayaa laba macallin baan leeyahay saaxirku inuu fadli badan yahay ama suufigu inuu fadli badan yahay dhagaxu marka inta qaado wuxuu yiri اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة إله وحيد أرنت الصوفية هذا كتش أشياء أرنت ساحرك إله دابة دلبو حتى يمضي الناس ندخل إلى أي كسر على جدك أي كمرة نبغى مركز دابة هذا من بقى لكن إلى اللي بقى عيدنا والمشية وهم دابة بس خطرك وأي دي اللي يسوي يا مونس نجح بخطوة هذا الله يحد دابة كين وينكم اللي متى ودي لي بس كوي بقابل فاهمكي ويمد أنتو سميو شيء محمد كاكوير أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي ويلي هو ما أنت أرى إغفض لبضمي أنت هذا وحي جارتي وحانا وأركاي وأنا لغو امتحامي دونا هدين لغو امتحامو لغو خبطو أنا هاي تصيني وأنين كان دين تان إيه شيء إذا أنين كان بقولك أسيغ إلى لما شيكتين موقت هاورن marka meesha waxa arkaysaa waxyaalaha kalaamaadka Ilaahay baa bixiya weedkii lama sheekh ahaa oo diinta haystay oo laga bartay waxaan soo iskuma arag wiilka yarka ay moogtay daaka fadullah yuutihi man yashaa wa Ilaahay fadligiisa Ilaahay baa bixiya waa dadana saalixiin waxa ka qaarna Ilaahay wax ka muujiyay qaarna waxba laga muujiyay waliba culimadu way yiraahdaan macnaheedu ma aha qofka waliga kalaamada lahaa kan kale inuu ka fadli badan yahay ma وإذا كان إنه كفر وإذا كان مثل كاس أن كلامه لقى موجلة سوى إنه كفر بدنيا هنقطع إنه كم عرمي هنقطع حتى إنه سنبا سووا إلهي بأوسوي ديسان أما بأوسن بدون إن بواكا وقوة وعضو عم بودي بجري بجري كلامات بينك مغرام أما إلهي بكدر بنجري ويل كيبا النبي خوف نضي هولا سانوس على أمر وحيل وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء wiilku wuxuu ahaa midka indhahala iyo midka baraska qaba inuu raysinayo ahaa dadkoo dhan cudurradoo dhan inuu ka daaweynayo hada ilaah baa wax raysiye nabi wuxuu uga jeeda ana ducada laakiin asagii buu iskiifi waa islaamkii majaaziga waa ka hadli doona ninka marka saas u soo caan baxay hada waxyaalaha kalaamaadka taayada waxa kamid dadka hanuunintoodii baa kamid ummadii oo dhan baa maqashay waa la soo aadahay dadka awliyada aad baa loogu intifaaci jiray dad badan baa ku hanuuni jiray
marka nin boqorka la fariisan jiro oo indhabeelay baa maqlay wiilkan soo baxayo dadkiibaa waxaa la yidhi indhaha laa hadday u yimaadaan indha yeelanaya markaasuu hadiye badan inta soo kaxeeyo wuxuu yidhi maa haahunaa laka ajmac in anta shafaytanii xoolahan oo dhan haddaba nin dhaloo boqorka saaxiib la ahaa adaa iska lebi haddaa caafimaadiso muxuu ugu jawaabi faqaala inii laa ashfi axadan inamaa yashfi allahu tacaala fain aamanta billahi tacaala dacawtu llaha fashafaaka buy faamana billahi tacaala fashafaahu llahu tacaala wuxuu yidhi anigu waxba ma caafimaadiyo ee ilaah baa wax caafimaadiya haddaad ilaahay u rumayso ilaah baan kuu baryahayaa ilaahna wuu ku caafimaadinahaya oo indhahaagii baa kuusoo noqonahaya ilaahay buu marka rumeeyey ilaahna marka wuu caafimaadiyey marka hadda labadan kelimo nebi maxamed markuu wiilka ka warramayo wuxuu yidhi yubri'u lakmaha walabras wayudaa wuu raysinayay wiilkaana wuxuu leeyahay anigu wax ma raysiyo marka labada hadal ma iskhilaafsan yihiin mase laba ictibaal bay kusoo baxeen nebi maxamed markuu leeyahay wiilkan waxbuu raysinhayaa nebi maxamed wuxuu og yahay waxa wax raysinhayaa ilaahay inuu yahay laakiin tan macnaheedu waxa weeye wiilkaani waxaas in la helo sabab u noqonhayaayo baryadaas ilaahay uu baryahayo iyo darajada iyo fadiiladaas ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ayuu ku helayaa waxaan markaa nebigu muxuu ka hadlay macnihii majaaziga ahaa buu ka hadlay waxay la mid tahay marka hadda qur-aanka ilaahay uu kusoo qaaday nebi uu ka warramahayey jibriil markuu u yimid nabi ciise hooyadii fatamathala lahaa basharan sawiya markaasay waatay qaalat inii acuudu biraxmaani minka anigu ilaahay raxmaanka habaan kaa magan galay haddaad rabbi ka cabsanaysa in kunta taqiy qaala inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki gulaaman zakiya anigu waxaan ahay midkii ilaahay uu kuu soo diray waxaana la iigu soo diray inaan ku siiyo wiil dahiran awliya ilma bixisaa layi ama awliya caafimaad waxaas hataa tacbiirkaa marka la isticmaalo macnaheedu naftiisu ka bixiya maa sabab buu ugu noqo ilaah buu u bariyey weye ibnu taymiya ad arkaysaa isagoo fataawiga ku leh awliyadu waxbay dishaa waxbay noolaysaa waxbay raysisaa waxbay caafimaadisaa so waxa la yaab la maaha hadda ibnu taymiya asagaa laga xishoonhaya haddii nin kale odhan lahaa waa gaal bay odhan lahay asaga juuq bay yidhaahdaan kitaabkiisay ku qoran tahay fataawigayo waa macruuf oo ma garan waayahay isagu marka waxyaalo badan buu qabe ninku badan dambe isagaa la yimid marka waxbaa si ka ah mar hafkii loo badnaabu marka hawshaa wuu qabaayo aada bektuisa ugu qoran tahay uu qabaa laakiin macnaheedu ma aha waa midda hadda jibriil leeya oo kale marka waxa bixinhaya waa ilaahay fanafaqnaa fiiha min ruuxina waa ti ilaahay u lahaa marka isla qiro kale waata midii abu camraha ilaahay baa ii kaa soo diray liyahaba laki gulaaman zakiya liyahaba laki inuu ilaahay ku hibay figaa labada khilaafaad marka liyahaba markii la yidhaha waa xaqiiqadiisana waa majaazigii marka ninkaan meesha marka waxaa la fiirinhayaa hadda xaaladda taagan ninkan wuxuu ku yidhi anigu ma caafimaadinahaya wuxuu u yidhi ninkaan boqorka la fariisan jiray markuu leeyahay xoolahan adaa leh haddaad caafimaadiso macno majaaziya ugama jeedo dee wuxuu u qabaa waxaan nafahaantiisa inuu u samaynayo xaqiiqadii marka uga warramo wuxuu yidhi anigu wax ma caafimaadinaa laakiin nabi maxamed asaga xaqiiqada waa og yahay muxuu isticmaalay macnihii majaaziga sidaa daraaddeed maanta hadday maqlaan qof le nabi maxamed oo ii garkaa waa gaal iskala soo gargaalka ilaahdaa bixiyey laakiin macnaheedu waxa weeye nebigu inuu ama u duceeyo ama fadligiisa uu ku helo ama awliyaha durabo sidaa ha yidhaahda marka hadalku wuxuu kala bedelan yahay hadda caqiidada iyo ujeedada uu kusoo baxo hadda masalan ninkan odhanahaya haddaad caafimaadiso qof muslimi hadduu qof yidhaahda caafimaadi uga jeedo inuu asaga wuxuu la imaanaya jeebkiisii waa ku gaaloobaya maxay hawl ilaahay sameeya wey laakiin hadduu sabab uga jeedo ama wilaayo ha noqoto ama waa dhaktara liyahu daawe uu yidhaahdo oo kale waa macnaha oo majaaziga waa ko ninkii marka boqorka ahaa wuu u yimid awal marka wuu la fadhiisan jiray oo haddee waa ragga boqorrada yani la fadhiiso arso ninka madaxda hadda waad aragteen moogta madaxweynuhu keligii ma fadhiisto xagga waa nima waxaa iska jira waxa weye si joogtaa bay madaxweynaha ula fadhiistaan dhinacyada waa majlisi u amiraan ragga uu la tashado shaqadiisu hore ka bilaabo ninkii boqorkaa wuxuu man radda calayka basaraka aragaagiyaa kuu soo celiyey si rabbigay si awalaka rabbun hayri rabbi aan aniga ahayn miyaad leedahay
rabbinimada asaga ilaah sheegan jiray boqorradu markay kibraan waa sidii fircoon oo kale ana rabbukum alaclaa qaala rabbii wa rabbuka allah aniga rabbiga iyo adiga rabbigaa waa ilaahay wey marka wuu qabtay wuu cadaabay wiya cidda ilaa waa ogyahay meeshaan wadaadkaas wadaad iska qarsoon buu ahaayo atbaac ma lahayn oo baqiyadii hore oo diintii nabi ciise ka soo hartay iyo waxaasuu ka mid ahaayo cidda waxaan ku bartay ilaadii sheegto sidii loo cadaabahayey wuxuu marka tusay wiilkiibuu marka yani u geeyey wiilkii markuu u geeyey boqorkii wiilkiibuu la hadlaa wuxuu yidhi ilaa sheekooyinkiisa calada maray wuu la socdaa moogta ay bunaya qad balaga min sixrika maa tubri'u lakmaha walabrasa watafcalu wiilow wiilkayga yarow sixirkaagii wuxuu gaaray wuxuu qabaa hawshii asagu uu awal barahayay inay hawshu tahay waxaad qofka indhaha le weliba akmaha waxay ku sheegaan qofka asagoo indhala dhashay weliba qaar baa odhanaya indhaha godkoodaba xataa uusan u samaysnayn wax aad ku raysinayso midka indhaha le ee qofka baraska qaba oo sidaa sidaa waxyaalo badan aan la koobi karin faqaala inii laa ashfii axadan inamaa yashfi llahu tacala anugu waxaa uma caafimaadiy ilah waa caafimaadiyo asagiina ciqaab buu saaray de wiil yarna waa iska ahaa dhalinyaro ah ilaa markii dambe cidda ku bartay sheeg baa lay ilaa suufigii uu tusiya suufigii baa marka la keenay diintaadii ka noqaanay waa uu diiday mishaar buu wacayo waa lagu kala jeexay ninkii boqorka la fadhiisan jiro u yeelo wuxuu diintaadii ka laabo waa diiday base diintooda ugu dheganaaye asla mishaar baa lagu kala jeexay wiilkiibuu u yeelo wuxuu diintaada ka noqo fa abaa asaga marka wuxuu sameeyey bacdamaa wiilkaani wiil yar uu ahaa oo ninkaa weliba asagoo gurigiisa kasoo waday oo saaxiibnimo in loo baro uu u keenay bacdamaa ninkaan uu yar yahay haddee waa nin mustaqbal kusoo socda uu isleeyahay waktiye asagii hore kama diline qole asxaabtiisu inta u dhiibay buu wuxuu yidhi inta wiilkaa kaxaysaan oo buurta heblele waa buur dheer buursha ay geysaan oo meesha fiintaayo sare aad saartaan diinta ka laaba ilaahda hadduu ka laama waa kasoo tuuri meesha in la cabsi geliyo sida waa xadiidka hadda muslim baa weli xadiid saxiix meeshii markii ay la tageen oo markaa ay fuuleen waa masaa ka yeelahay waa kadib buurtiiba ayaga la geritay ayaga waa daateen asagiina waa soo socda asagay buuri ma ribine waa boqorkiibu haddana dad macaladiisa kalaysan kara boqorkiibu ta u su-aalay wax fahamsiiyuu rabaa markaasuu haddana ka kale inta u yeelay doqonnimadiisa oo doon saaro wuxuu yidhi badda inta geysaa meesha badda ugu dhexdhexayso qof kasoo dabaalan kara aanu jirinin geeyu yidhi ilaahda diintaada ka noqo hadduu diidana badda ku rido meeshii markay geeyeen ayagiibaa baddii la gadoontay doontii la gadoontay asagii asagoo soconaya xagee soo maray biyaha dushooda ma qaar waa jiraa isku daya oo yidhaahda doon kaluu saaraa waxaa keenaya meeshaan mucjizaad iyo kalaamaad baa ka muuqanahaye laba doon baa kuwii ku ridahaya asagoo ay kala saaran yihin marka meeshaan waxaa muuqata inuu biyihii kusoo dul socday biyo lagu dul socdaan rag asxaabay u dhacday oo waa keeni doonaa kalaamaadkii ka midkaa biyo la dul maro oo kale inta uu yimid marka labada jeerba kii hore iyo kanba wuxuu ku yidhi markuu yii war aawo qoladii aan kugu diray kuwaasna baddi baa laqday ilaa meesha la tegay meel laga soo dabaalan kara ma aha dhibaatada hadda qabsatay wiilashaan hadda baaba-ahay oo kale mar hadduu qofku badweyn tago dabaalka kama imaan karo marka labada jeerba uu weydiiyo aawo dadkaagii kafaanihim illahu mid walba kula ilaah baa iga deeqay wuu u sheego isagoo doonaya bal dadku say u islaamaanba wuxuu yidhi inaka lasta biqaatilii xataa tafcala maa amuruka bi ima dili ka dhig buu yidhi ilaa waxa anigu aan ku farahaya aad ka samayso wuu u sheegayo wuxuu yidhi maxay tahay buu yidhi wuxuu horta dadkoo dhan baad meel banaan isugu keenaysaa buu yidhi aniga wuxuu yidhi quruxayga quruxu waa bahalka kan ee gamunada la gashado ayaad gamuun ka qaadanaysaa gamuunkaa qaansada beerkeedii baad saaraysaa macnaha qaansada boqolka ay leedaho xalinka ah meesha bartamaha marka la tuulayo waxaad odhanaysaa bi si kale iguma dili ka dhide bismi illaahi rabbilghulaami lala waxaan ku tuulahayaa gamuunkan ilaahay magaciisii oo wiilka rabbigiisii ahaa asaga dhugmaxumadiisa wuxuu is yidhi wiilkan dadkii kaa leexsaday maanta ka takhallusaysaa sidii markuu yeelay oo wiilkii meeshaas dhafoorkaada uga dhacday gacantu saa u saara waa dhinta dadkii dhammaada waxay yidhaahdeen aamanaa birabbilghulaami wiilka rabbigiisi waa intaasu ka rabay dadkii magaalada halka marka asagii dagaal qaaday oo yidhi meela godad ha la jeexo dadkii dab ha lagu rido dhibaatooyin marka yani geystay